cadowgaaga waa kuma imise cadow ayaad leedahay cadow ma waxaad u taqaanaa qofka xoolihiisa kuu diiday ama ballankaaga baxay ama mar walba ku xasdaya ma ahan cadowgaaga kaas cadowgaaga dhabta ah waa kan alle subxaanahu wa tacaala kuu sheegay cadowgaagana waa afar midka koobaad waa shaydaan lacnatullaahi calayhi waana kii alle subxaanahu wa tacaala uu yidhi إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير shaydaanku waa colkiina ee idinna col ka yeesha wuxuuna ugu yeeri uun xisbigiisa si ay asxaabta naarta saceer uga mid noqdaan cadowgaaga labaadna waa nafsadaada وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم mana bariyeelaya naftayda naftu waa farid badan tahay xumaanta naxariista rabbigay mooyee rabbigayna waa dembi dhaafe naxariista cadowgaaga saddexaadna waa hawadaada alla weyne kor ahaaye wuxuu yidhi أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون كورن روح كيش إلهي سيهوديسا أو الله دمي إساقو علم له oo daboole maqalkiisa iyo qalbigiisa yeelayna aragiisa dabool yaa hanuunin allah kadib miyaydan wax xasuusanayn cadowgaaga afraadna waa adduunyada oo allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور haddaba waxaad ogaataa afartaas cadow inaad leedahay waana afar cadow oo kala daran maxaa yeelay shayddaanku wax kale uma taagna inuu ku baadeeyo ma ahane haddaadan ka dhiganin cadow nafsadaada mar hadday nafsadaada ku hoggaamiso aadna garan weysa qaladka iyo saxa aadna qaladkeeda u qaadato wax saxa saxeedana aad u qaadato qalad waxaa tahay qofay nafsadiisa hoggaamisay siday kuu waddana waxay ku geynaysaa jahannamo haddaadan iska qaban allah ayaan ka magangalnay hawadaada oo aad mar walba iska raaraacdo yadadiilo aadan gaarayninna aad mar walba ka fikirto heer aad gaartay inaad wax walba u samayso hawadaada darteed iyadana waxay ku geynaysaa jahannamo ciyaadan billaah adduunyadu wax kale ma ahan waa adigoo qabaystay dhar qurxoonna xirtay haddana aad shallaysatay kadibna baxday oo aadna moodday inaad ku waaraysa dhaldhalaalkan beenta ah aadna hilmaanta waxa adduunyada laguu keenay iyo halka aad ku socoto haddaadan fikirin oo aadan naftaada xisaabinin maalinta aakhira waa lagu xisaabin doonaa yeeshaya ama diidayaaba adduunyaduna siday kuu wadda waxay ku geynaysaa jahannamo waxaadna ogaataa waxaasoo dhan waxaa u taliya ibliis lacnatullaahi calayhi soonna lagama raba inaan iska dhicinno afartaas cadow oona la arkaynin qofka caqalka wuxuu ku jawaabayaa haa haddaba waa inaan u diyaargarownaa sidaan iskaga dhicin lahayn afartaasi cadow maxaa yeele ma jira cadow kaaga weyn afartaasi cadow haddaad iska dhiciso adduunyo iyo aakhiro waxaad noqonaysaa qof liibaanay
haddaadan iska dhicin waxaad noqonaysaa adduunyo iyo aakhiraba qof khasaaray haddaba afartaasi cadow waxaad iskaga dhicin kartaa ilaahay kitaabkiisa inaad qabsato kuna qabsato dariiqa nebigeena muxamed sala allahu calayhi wasallam oo aadna noqoto mid ku dhaqma 24 saac sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasallam markaasi waxaad noqonaysaa qof iska dhiciyey afartaasi cadow maxaa yeelay nebigeena muxamed sala allahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay waxaan idinkaga tegey 2 shay oo kale ah kitaabka alle subxaanahu wa tacaala iyo sunnadaydii haddaba walaalayaal ninkii qabsada kitaabka alle iyo sunnada nebigiisa wuxuu noqonayaa qof iska dhiciyey afartaasi cadow ee aan soo sheegnay qofkii qabsan waayana yuusan eedin nafsadiisa ma ahane waxaan u dardaarmayaa nafsadeeda iyo tiinaba awalan cabsida alle subxaanahu wa tacaala iyo inaan iska dhicinno afartaasi cadow wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh